ciidamada Israa'iil ayaa isniintii isaga baxay isbitaalka Al-Shifa ee marinka Gaza kadib muddo 2 toddobaad ah oo howlgallo ay ka wadeen halkaasi. Ciidamada Israa'iil ayaa 18 bishii Maarch weeraray isbitaalkaas oo ku yaala waqooyiga Gaza kadib markii ay sheegeen inay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dagaalyahanada Xamaas, isla markaana ay weerar ka soo abaabuleen. Weerarkaas oo Xamaas ay si degdeg ah u beenisay. Taliska militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay dileen, isla markaana ay soo xireen boqolaal ka tirsan waxay ku sheegeen argagixisada. Waxay kaloo sheegeen isbitaalka ay ka heleen hub iyo weliba dokumentiyo sirdoon oo sida ay sheegeen ay leedahay Xamaas. Ciidanka difaaca Israa'iil waxay dileen 200 oo argagixiso ah, waxayna soo xireen 500 oo kale. Hub iyo dokumentiyo sirdoon way ka heleen isbitaalka ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay militariga Israa'iil. Muddada uu howlgalka socday, ciidamada Israa'iil oo watay taangiyada ayna taageereen diyaaradahooda dagaalka ayaa burbur xoog leh u geystay isbitaalka iyo dhismayaasha kale ee u dhow xoogagga wax iska caabinta Falastiiniyiinta oo soo duldegay ciidamada Israa'iil. Isbitaalka weeraray ayaa dagaal culus kula galay wadooyinka soo gala. Muuqaalada laga helay isbitaalka iyo xaafadaha uu ku teedsan ayaa muujinaya burbur baahsan oo ay ciidamada Israa'iil u geysteen isbitaalkaasi iyo dhismayaasha kale ee ku dhow. Dhismaha isbitaalka ayaa waxaa ka muuqda in la gubay, iyadoona Israa'iil ay kooxaha wax iska caabinta ku eedeeyeen inay ka dhex dagaalamayeen gudaha isbitaalka, isla markaana ay qaraxyo ku burburiyeen. Wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay goobta uga tageen meydad fara badan. Muuqaalada ayaa lagu arki karayay meydad ku duuban bustayaal kuwaas oo qaarkooda si xun loo dilay. Dhammaan dadkaasi waxay ahaayeen rayid sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. Isbitaalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay hooy u ahaa in ka badan 7,000 oo qof oo isugu jira bukaanno iyo dad barakacyaal ah, waana mid ka mid ah xarumaha daryeelka caafimaadka ee qayb ahaan ka shaqaynayay waqooyiga Gaza, waana isbitaalkii ugu weynaa ee ku yaala marinka Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa bishii November weeraray isbitaalkaasi, markaas oo ay sheegeen in Xamaas ay ku leedahay saldhig dhulka hoostiisa tiyo aan Israa'iil xaqiiqadeeda bannaanka keenina. Weerarka isbitaalka ayaa ka dhaliyay qayladhaan caalami ah, iyadoona Israa'iil ay Gaza ka geysatay xadgudubyo ka dhan ah shuruucda caalamiga.